فايز كسر استوديو درسن تي في ما سنته ما أنت فيسبوك شركة كسر قرتي وفافتي وبراه برشة قبضتي كسب سنين كسر على إيميل هرجل كسر وإنه دلود إكارة شكير إنها تهاي نين مدلو هاي سلك دم بوندر كدب لوسي داي بحرتان كدب شكلنا بي وريجيس هذا فيسبوك إيميل بقرار كاجي برسيحو دعينو بلابل سيحو بلاد مركوري سيل على شكي وما سنتهاي فرصدان قالية أساساً دلسم تي في ساكي مركو واجب بريه سيد عادة هاي أيان وحن سوء هذا شق مركو شق حفيز كان كسعودي قرية ينقص بحي أنا وشقة كسعودة أي محو هاي دلجير كدهسون أسكر فريدا أي أنا بجات سارنا يجوها شيء مركز وحان حرناي إن الشرر بوليسك ويستاجين مركز جوجين دلجير كدهسون وحي راهدين إن شرار كيسك قاد إن شرار كيان اسك قادي إن شرار كان اسك قادي نينكي wuxuu yiri soo degaaday waa u soo degay amarkiis waa qaatay waa u soo degay marka u soo degay wuxuu yiri adiga waa laga shakiyay marka waxa waa intii staak marka gabar oo wax isku nahay ila socotay xiligaas oo ayadana xamrweyna rabtay markaas dan gabadhii yaaniga wala la soo dejiyay sidii ku soo degnay kadib ayuu wuxuu dhahay marka waa lagu kaxeenaaday saldhiga lagu geenaa taliyihii ayuu la hadlay بوليسكي كي جوجي عسكري كي جوجي مشان دان تليه wuxuu ku yiri waxaan haynaa nin soo xirtay xijaab iyo shareer waagart markaas taliye wuxuu yiri askari soo raaciye meesha kula joogo mid kamid ah soo raacaan bajaaj la soo saaro halkeen saldhiga bondere sidii marka waxaan isku raacnay aniga iyo booliski mid hal askari inda shareer waa iska qaaday gacanta ku haysta markaas iyo waxaan is raacnay iyo aniga iyo gabadhii oo muxuu ahay wax isku ahaan ماشي waxaan tagnay markaas saldhigiyana la geeyay saldhigin markii la geeyay waxaan sugaayeen ba askarti oo la sii inform gareeyay loo sii sheegay warkii inaan soo socono dan marka askarti Italiya joogeen oo saldhiga Bondere dan saldhiga Bondere Italiya waxay weydiiyay assalaamu calaykum yiri magaca waa ugu jawaabay calaykum salaam adahay waxa la dhahay Faiza wuxuu yiri okay gabadhan marka Italiya wuxuu yiri nin waayba تاريخ ممكن يقول جيو السلامتين سجن أو حكور راعي ونين إناه سوق قابتي إنا ننتهي ها نين إناه مركز محيط دليشان أنا سانو أركان سانو وحجابنا مركز سانو وحجابنا هاي سان أحد أقول بسنا وكله مركز وحيو مركز جبر يقول رجين هاي واحد دليشان ملاها ما أقان أستانت أو أستاما كله أي صورنا يا المركز جبر جوكت ماشى أو شركة مقاشة أنت وعسكري أيام مركزي لإيدي أو ده صبار جبردان gudaha gali soo bar gabadhii markii aan raacay hanjabaad ay ugu bilaawday ma taqaano meesha ka socdo ma taqaano xiligaas ay ugu horeysay oo dhacdadaas lagu soo qabtay shantii gabdhood ayay kacisay gabadhii baaritaanka aan leeyahay diray oo qolka ay galisay shantii gabdhood ka ceen waxa la banaanka u baxay shantii gabdhood waxay yiraahdeen anaga ma baxeeno maxaa waa qofkan noo soo galisay markaas waxa la nin waaye waa la baara waa laga shaki waa la baara markaas gabdhihii intee wada ka ceen shalmadihii isku aadiyeen ayay waxay yiraahdeen nin bismillaahir rahmaanir rahiim gabadhii markay waxay tiri dharka siib waxaan ku yiri dharka siib maayo adiga waxa lagu talagalay inaad ibaartid baaritaankana caadi guud waa sameyn kartaa ibaar wixii kale oo ka baxsan awoodaada ahaan waa inaad gudbisaada tan markaas ayaga halka gaaraan gabadhii way ibaartay timihii markay ay taabatay waxay tiri timada dheer leedahay gabadha markaas waxay yiraahdeen hadda ka hor nin la soo qabanayay timada dheer buu lahaa adiga waxba ku dalina markay baareen markaas cilaana ii marsan faraha markaas waxay midaa soo boodo waxay tiri oo hanti baaris la ii diray waxay tiri ninka wuxuu marsan yahay cilaan ayuu marsan yahay gabadhii waxay tiri aniga intaan ka badan wax kuma arkooyi maxayna la tahay kuwii kale la tashanay marka kuwii kale waxay yiraahdeen wallahi hadda tan siidaysid ee qaraxda adaa lagu haystaa shaqadaadana waa qilqiila galay ayaas warsanayaan gabdhihii kalena qolkii baarista kuma jiro dan midaa waxay soo boodo waxay tiri hal sano oo waxay haystaa ciidan tababar haystaa gabadhan in la sii daayma waxaan ku yiri adiga hadda ay aragtay aflagaadada waa laga fiican yahay adigana ma aha qofkii baarayo soo marka waxay ku fiican dhahay nidaamka ina aliyaalisid oo amstid waxay tiri tan way indhacadahay tan way caddahay niyo gudbi taliyihii banaanku taagan yahay marka albaabka banaankiisu taagan yahay wuxuu leeyahay waryaa wax ma heshay maxaad ku aragtay ha warbixin sugaya markaas taliyi wali waan gacanta ku hayaa oo waan baaraya kadib taliyihii wuxuu yiri nin qofkaana la keeno waa nin diaspora
ha askartii wartkooda socda marka waa nin diyaas baraa gabadhii waxay tiri aniga wax kale kumaan arag taliya adaa ku dhiib sheekadan wali waa question mark saaran taliyihii marka OB-ga igeeyay marka dambe oo taliyihii bas aniga taliyihii isku noqonay taliyihii wuxuu yiri adar marka gabadhii ila socoto banaanka joogtana gooniya loo wareysanayo waa loo tagay gabadhii markii dambe as wareysan doonaa soo baxo aan gabadhii is wareysan doonaa qolo kala wareysanayso askartii banaanka joogtay aniga iga wareysanayso dan gabadhii waxaa lagu yiri gabadha ma taqaanaa markaas tiri ha waa aqaanaa guriga la deganahay ehel iyo qaraabaan nahay gabar waaye maxaa niga qaldanay ku tiri ayigi askartii jawaab u celisay markaas waxay ku yiraahdeen ninana qabay ku tiri gabadhan maxaan waxyaabahan kale waa laga fiican yahay waa u jeedin inay gabar tahay waana la qabaa markaas waxay ku yiraahdeen adiga ma u qabay adiga se ku aragtay adiga ma u qabay waxay tiri waa aflagaadad waa laga fiican yahay qofkaana kuwa ku qaldan muusi inaa ka fiirsatina fiican kadib taliyihii wuxuu weydiiyay meeshan ka shaqeeyo waa u sheegay meeshan ka shaqeeyo iyo meeshan deganaya wuxuu yiri inta degantahay xaafad waxa uu sheegay ina degmada Boondheer aan ka tirsanahay qayb ka deganahay markaas wuxuu yiri oo anaga aageynaba degantahay saasay tahayna markaas ku yiri ha dood dheer ka bacdi oday oo muxuu ahaa saldhiga ka shaqeeyo askari ah ayaa soo galay oo sheekadii banaanka ku soo maqlay dadna wuu ifiirinayo wuxuu yiri gabadhan gabar waaye ninba mu ekaman isku dhow maxay tahay wax qaldan gabadhan ku heystiin gabadhan waa u gafteen gabadhan waa ina raali gelin ka bixisaan asiideysaan markaas waxa ku yiri waa mahadsantahay ku yiri ninka askariga ahaa odayga dadna taliye wuxuu yiri askarigi in loo abaalmariyo waaye abaalmarin la siiyo because wiligiis wax ma soo qabanin maanta uu qof soo qabtay darajo mudan yahay dadna soo qabtay darajo mudan yahay dadna waxaan ku yiri askariga waxa darajo la siiyaa markii qofkii si sax u soo qabtay laakiin qof daf loo geystay hadaba askari aad muxuu ahaa mudnaan siinaysid abaalmarin ugu dareysid markaas shacabkii hal dhibaatay aha dadna wuxuu yiri adigu aad adag tahay xagan fariiso waan ku xiraya waxaan dhahaa xirtin adaa taliya ah maanta awoodii wadanka haystid way xiri kartaa xir dadna markaas odaygii wuxuu yiri gabadhan iska sidaayay gafa u geysteen hadana muran iyo muxuu ahaa iyo awood sheeg ah ugu darinay sidii lagu soo daayay marka waa tahay magaalada joogtaa dabcan magaalada hadda waa jagboonti badan ayaalo howlgalaa ka socdo horena jagboonti badan u yeeleen askar iyo baaritaan way jireen markii ugu horeysa oo sana lagu tuhmaa in lagu maleeynin mase inta ogtahay inta ogahay markay dawlad xageeda noqday waa markii ugu horeysay dhacdadaas igu dhacdo laakiin aniga waxa ahay qof muqdisho ka bixin oo muqdisho degan waayaheedii iyo dhibaatadeedii wax kasta u soo joogtay shacabka ina kala kulmo oo marka suuqa marayo kale ay dhahaan shaarba leedahay oo qof aqoonin iska ka istaajiyo aba shaarba leedahay dhaho waa laga yaabaa laakiin dawlad ahaan inay iga shakeyso markii ugu horeysay iga shakeyso mid kale waxaan la yaabanahay inta soo jara ka baxay diyaaradda aadan cadde international airport qof iga shakiyay am idhahay istaag oo waa lagu baara laakiin howlgala ka socda hadda howlgalka weligiis socduu ahay maaha wax maanta ku cusub maaha wax maantii shalay bilaabmay howlgal markastay dhacdaa imsa lagu hayay markay asaliga tagteen hal saacadood ku jiray baaritaankii wixii iyo doodii iyo hal saacadood ku jiray ugu dambeyn banaanka timid facebooka dabcan ku qortay sida u dhaceen iyo dad badan aaday uga falceliyeen dadweynaha ka falcelinayay boostigaaga ka waran dadweynaha dhowr qodob ay isugu jiraan dhowr siyaabood ay commenti ugu bixinayeen qaar ka xun oo ay garanayeen qofkan ahay way ka xumaayeen laakiin waxa jira dad ku aqoonin oo ku afilgaadina oo dhahayaan way is cadeysay anigana ilaaha qof waligeed is cadeysay ma ihi oo chemical isticmaashay oo jirkeeda uu isticmaashay ma ihi qof cadaanta u dhashay ahay qof shaarbaha ilaahay ka soo saaraan ahay ma ihi qof chemical inta isticmaashay ka soo baxday dadna saasay u hadlaayeen dadna waxay dhahayeen dad badan ay garaabayeen oo waxay dhahayeen askartu waa inay si kale ay u macaamisha dadka ka shakiyaan oo si fiican ay u hadlaayeen dadna waxay dhahayeen chemical iyo xaggaas ay u jeedinayeen dadna waxay dhahayeen waa run aniga waa ka shakan lahayd saaxiibada ku soo wacay ka waran markii dhacdada maqleen markii laga tago ku Facebook saaxiibo badan kula degan ama si kale u maqlay dhacdada dad aad iyo aad u tiro badan ayaa soo waceen oo saxafiyiin ku jirto oo aad aan isku naqaano waxa ku jiray
qofkii ugu la yaabka qofkii ko sheergareeyay wuxuu ahaa Aamin Yuusuf Qasaar oo abaal weyn u hayo Aamin Yuusuf Qasaar waa isla shaqeynay wax badan isla soo joognay way garanayaan shakhsigan ahay qof kamid ah ayaa wuxuu weydiiyay qofkana difaacusid miyaad garanaysaa horta intaad difaacin ya horta aad u maasanta Aamin Yuusuf Qasaar waxa iga ogtahay oo sidee tahay uu sheegay marka waxa dadka hadeen ku aqoon xataa iska kacaynayaan dib ma leh telefoon laga qoray dib lagu soo xiriiray wax apology lagu siiyay maya apology lama siin ninkii la abaal marina la taagnaaba ha sidii ku soo kala tagnaa anu waa weydiiyay xataa waxaan yiri waa ii gafteen saacadana ay haysteen gabdhihii booliska ahay discipline igula dhaqmeen oo way caayeen waxaan u baahanahay raali gelin oo maada u baahan la awood waxa u leenahay xilliga rabna inaan ku xiran karno ku baari karno waxa doona ka sameeysan karno marka waxa ku tusaysaa meesha inay awood taalo oo aysan oolin muxuu ahaa nidaam iyo إذا أظن ما صنتهاي قدوميها دفاع يا شعب وذنها ذلك الصومالية يهد وما أنت دعاء يكون خمسة بولر نور ميس.